Weligaa ma isweydiisay halka laga helo muuqaalada sidan ah ee inta badan loo isticmaalo in lagu sameeyo muuqaalada emotional damage-ka? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada muuqaal cusub channelka aad iga daawanaysaan oo xirfadle tech. Muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa halkee ayaa laga helaa muuqaalada sidan ah. Muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saaro. Haddii aadan weli channelka subscribe saarin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto. Haddii aad muuqaalka heshaan waxaan kaa codsanayaa inaad like siiso si aan u gaarno hadafkeena. Haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta. Si aad u hesho muuqaaladaas emotional damage-ka ah waxaad ka helaysaa application-kan oo loo yaqaano Pinterest. Pinterest ayaad marka hore gudaha u galaysaa, waxaad ka furanaysaa ciwaan waxaad ugu furanaysaa oo kale Gmail-kaaga ayaad gelinaysaa, kabacdi ciwaan ayaad ka furanaysaa oo kale. Pinterest inta badan waxaa laga helaa muuqaalo cajiib ah oo dad badan soo geliyaan, kuwaas oo ay ka helaan followers badan sida TikTok oo kale. Waa meel muuqaalo lagu soo bandhigo, xitaa waxaa la sheegaa in lacag laga sameeyo. Weli aniga maan arkin meel lacag looga sameynayo kale. Marka aad gudaha u gasho kale waxaad qoraysaa kaliya qaybta searching ee goonida waxaad ku qoraysaa emotional damage videos ayaad kaliya qoraysaa, kabacdi muuqaaladan ayaad helaysaa oo sidan ah. Hadda ciwaankan oo kale ee halkan kaga muuqdo markaad qorto xitaa qaybta searching waad ka helaysaa muuqaalada sidan ah. Aad ayuu ku anfacay haddii tahay qof TikToker ah. Marka aad hesho muuqaalada sidee aad u soo download gareysan kartaa? Marka hore haddii aad rabto inaad soo download gareysato, marka hore waa inaad ciwaan ka dhex samaysataa Pinterest. Ciwaan sidaad ugu samaysanayso waa in aad marka hore gelisaa Gmail-kaaga iyo waad garanaysaa sida wax loo iskaga diiwaangeliyo kale ama sida application oo kale la iskaga diiwaangeliyo. Waa sida Facebook oo kale ama Twitter oo kale ama waa sida oo kale. Maanta muuqaalada mid ka mid ah ayaan tusaale ku tusayaa. Haddii aad rabto inaad soo degsato waxaad ku dhufanaysaa qaybta 3 dots-ka ayaad ku dhufanaysaa, kabacdi waxaad dhahaysaa copy link ayaad dhahaysaa. Copy link marka aad dhahdo waad ka soo baxaysaa oo waxaad imaanaysaa Chrome-ta ayaad imaanaysaa. kabacdi Chrome-ta ayaad waxaad ku qoraysaa Pinterest download ayaad ku qoraysaa. Pinterest download ayaad ku qoraysaa. Pinterest download si fiican u xusuusnow. Pinterest download marka Pinterest download ku qorto website-ka ugu horeeya ee ku soo baxo ayaad gelinaysaa oo waad garanaysaa link markaad soo koobiyeyso meel ayaa gil lagu dhahayaa oo ama meel bannaan ayaad arkaysaa markaad wax soo inaad download gareyso rabto, kabacdi meesha ayaad riixaysaa oo kale. Markaad riixdo waxaa ku soo baxayo kale wixii soo koobi gareysay haddii uu yahay Gmail ama haddii uu yahay copy link ama wuxuu ahaadaba uu ku soo baxay sidan oo kale. Haddii aan had tusaale ahaan ku soo kale waad riixaysaa kaliya waxaad riixaysaa qaybta loogu talagalay kale kabacdi uu galaya, kabacdi download aad ku dhufanaysaa. Marka download ku dhufato kale muuqaalkii ayuu raadinayaa oo kale. Muuqaalka markuu raadinayo wuxuu u baahan yahay inuu ogaado muuqaalka la soo download gareynayo uu muuqaal Pinterest yahay. Kabacdi waxaad ku dhufanaysaa download marka ku dhufato kale ma download gareysmayo oo muuqaalka ayuu gudaha ku sii geynayaa. Kabacdi muuqaalka markuu gudaha ku sii geeyo qaybta yar ee 3 dots-ka ayaad ku dhufanaysaa, haddana waxaad dhahaysaa download kale. Download kale marka aad dhahdo wuu ku download gareysmayaa oo downloading ayuu bilaabi doonaa wax kadib. Haddii aan sugno kale haduu bilaabay haddii aan fiirino kale wuu socdaa. Hadda midkan wuxuu isticmaalayaa 1.14 MB ayuu ku soo degayaa muuqaalkan MB ahaan marka la dhaho kale. Pinterest muuqaalo sidaas oo cajiib ayaad ka helaysaa. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saaro. Haddii aad hore noola joogtayna soo dhawow. Haddii aad muuqaalka like siisan waa inoo muhiim. Like-tu waa inoo dhiirigelin. Muuqaal walba muuqaal ka sii xig waxaan u baahanahay in like-tiisa fara badato si aan u helo saaxiib u wanaagsan sida adigoo kale. Hadda muuqaalku ii soo degay waa kana sidan ayuu ku soo baxay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.